Welcome YouTube. هذه أدبان الإسلام دمانتين نضعف مضقبتان بارتشينية. Yes, long time no see. هذه أدبان مشغولي. Apologize. وإن شاء الله start from today. ما أنت لقى بلا بإذن الله. أسبوع كستوح نكون حسابتم دونا 2 videos. Lessons تلوين يتجرين إن شاء الله. أو مرين دونا نفترض. If this is the first time I director, my name is Tutor Anwar. وحنا معلم لغة لغة English لغة for the past 7 years. So إذا ربطنا هرماريسو لغة Englishka تلوين هذا شكو عاون دونا self improvement سميسين إن شاء الله. Subscribe, like this video and share it to someone. هذا سلالي وحبتك فايدة دونت. And وحن ربعنا ندين شيء إن شاء الله وحن بحينا courses. A professional courses and نقول تلاقي لنا برشا لغة Englishka and نيتشرين mail ودي دون تقاب كانوا ودي دونه لمان جيجا سومالي ده. إن شاء الله مقالكم حكوا شرح دونا قاب كانوا لقينا أردنا نقاضن دونا دفعة كوباد إن شاء الله وحنا نقول دونا بقول يكتون أرضي أو كليات عنكوا عليه بقول يكتون أرضي أو كليات أستمر عن maybe مقالك أنا كنت كنا وقف بقول كنا وقف أي دعوضان وبقول كنا وقف وحنا نوقف إنه كليات بقول يكتون وقف page كي كلامنا لما ونصلي دونا إن شاء الله so make sure بقول يكتون وقف وجوه الرأي إن شاء الله نتكلم النقط waxaan ku sharxi doonaa qaabkan course kan u bixinayno iyo adiga arday ahaan qaabkay ku caawin doonto arday waxaad ogsoon tahay aniguna aan ogsoonahay caqabada ugu weyn ee luqadan Englishka ka haysataa inay tahay hadalka most of you minka daawanaya the main problem is speaking ama communication luqadana one of the main reasons loo bartaa waa to communicate reasons ka uu bini'aadanku luqada iyo wada hadalka uu ikhtiraacay ama uu u samaystayba waxay ahayd inuu isku fahmo oo uu ku wada hadlo so speaking is a main key wa points ka ugu muhiimsan ugu qaalisan markay luqad cusub ay noqoto qaabkan u dhiganaan ku sheego arday waxaan ogahay if aad mar luqadan English ka hore soo baratay oo soo qaadatay inaad ka daashay recorded lessons ka ama casharada duuban imika YouTube baad ka daawanaysaa waxa jira boqolaal kumanaan malaayiin videos baad helaysaa oo duuban oo daawan karayso ardaygu uma baahna recorded video cashar duuban uma baahna wuxuu u baahan yahay interact inuu macallinkii la sameeyo inuu su'aal weydiiyo inuu macallinkii la hadlo inuu practice la samayn karayo waayo taasaa horumarinaysa luqadiisa sidoo kale ka caawinaysa inuu hadlo ama luqada Englishka qaab effective uu isticmaalo qaabkeenu ardayga u dhigi doonaa biidnillah waa qaab caynkaas waa live lessons sida imika aan ku hor fadhiyo ayaan ku hor fadhiyi doonaa practice baynu samayn doonaa waana maalin kasta halka ay leeg waa maalin kasta kumilihii isbuuci maalin kamid ah live soo gelinaad qaadana saxisada kumilihii labadii cishaba maalin waa maalin walba aan kugu celiyo maalin kaste waxaad qaadan doontaa live lessons iyo casharo toosa intaasoo keliya kuma koobna ee maalinkii laba waqti aad qaadan doontaa gelinka hore iyo sidoo kale gelinka dambe labadaba waayo waxaan tixgeliyey availability-ga ama dadku time-ka hayaan dad baa gelinka hore shaqeeya qaar baa gelinka dambe shaqeeya sidee li ajligeed labada gelinba xiisad baa lagu soo geli doonaa focus-ka iyo diiraddeedana waxay saarnaan doontaa practice-ka inaad luqadda Englishka aad isticmaasho oo maxay ahayd tolay ku hadasho ardayda iyo sportsku saan sheegay waa very limited haddaan u imaado manhajkaanu bixinayno waa manhaj international jaamacadda Oxford oo jaamacadaha adduunka ugu waaweyn ka mid ah ayaa soo diyaarisay so buuggii waa buugaag tayaysan systemki waa life lessons intaasoo keliya kuma koobna laakiin waxaan ogahay ardaydu inay xiiseeyaan casharada duuban waxaad heli doontaa boqolaal cashar oo duuban oon anigu diyaariyey levelkaaga exactly suitable ku ah ifaad beginner tahay ifaad elementary tahay ifaad intermediate tahay iyo xataa haddaad advanced tahay ood waqti allaala iyo waqtigaa doonto aad ka daawan karayso mobilkaaga meel kaste ood kaga sugan tahay daafaha dunida soo kale waxaa jiri doona ardayda one-on-one coaching waxaan ka wadaa one-on-one coaching ardaygu inuu ii sheegi karo cilada iyo dhibaatada haysata halkuu u baahan yahay inuu horumariyo waxa ku adag waxa aan ku adkayn intaba so waxa aan soo mention gareey oo dhan waxaan ugu talagalay 150 ka arday inay mira dhal ay biidnillah ay noqdaan halkan YouTube waan ka shaacinaya all my social media platforms waan ka shaaciyay waxaan rabaa ardayda inay sheego dadaalku waa muhiim inaad dadaasho waqti iyo juhdi intaba aad geliso aniguna aan kula dadaalo addition inta waxa maxay ahayd tole ku noqon doona luqadu ma adka
even very funny facts aan kuu sheego keliya taarta waxaad u baahan tahay 3,000 oo kelmadood si aad awood ugu yeelato inaad si effective luqadda ugu hadasho structure-kii grammarka aad ku saxdo 3,000 words ayaad u baahan tahay keliyaad luqadda ha isku adkayn cid kaana ayay kugu adkaynin choose the right place the right choice of a quality education aad baan kuu soo dhaweynaa ardayo description-kan insha Allah soo dhigi doonaa the links and where you can contact me from again share this video to someone aad isleeday wuu u baahan yahay wax buu ka faa'iidayaa inuu luqadan barto u baahan yahay please share it to him inshallah and like I said the sports are very limited so make sure in aad qayb ka noqoto dhankan YouTube-ka bahdin YouTube-ka I know guys I miss you too aad baan idinku xisay and I know you guys miss me too waxaanu samayn doonaa silsilad inshallah videos fara badan baan soo diyaarin doonaa biidhnillah isbuucii 2 videos aynu biidhnillah ilbaari ku xisaabtami doonaa mar labaad aad baad mahadsantiin thanks for watching and ka mid noqda the lucky ones boqol ka toka arday inshallah aad baan rabaa inaad ka mid noqotaan contact me thanks for watching and see you later dhamaantiin